haddii aynu qiso yar soo qaadano magaaladan aynu joogno Hargeysa ina yar baa moobilka ku gaalowday radeegada moobilka oo magaaladan ay joogtaa ayay ku gaalowday diinta islaamka kaga baxday English tay taqaanay waalidkeedii waxay ku tiri waxaan u baahanahay jaamacadan dhigtaaye internet xoog badan inaad ii soo geliso hooyadeeda abeeda ku tiri sida casharadii macalinku noo soo diray si fiican aan uga shaqeyn karo baaritaan wanaagsan ku soo sameyn karo way dadkiina hunguri laga raaca oo qof waliba wiiliga gabadh wuxuu isleeyahay balkan ingiriisida aad hawl liqliqo si uu lacag beeran u soo daato quraanka aad hawl liqliqo oran maaya si uu alla ka cabsi u soo daatee mid waliba wuxuu leeyahay bararta taa u badan cilmiga maadiga ah law adduunyo doonay kaasuu leeyahay ka dharki inta internetkii uu ka dharkiyay waalidkii iyaduna waxay la xiriiray qolo Norway joogto mishanka waxa ay kuwa diinta Kristaanka faafiya way waxay siiyeen dhoofkii laga raacay waxna way la soo yara qaadeen waxay yiraahdeen si arrinkaaga meel loogu tiiriyo de waxaan u baahanahay inaad madaxdayada la xiriiro hay'adaas aanu nahay waxna waanu ku bari jaamacad waa ku dhoofineynaa ma iska aqbalaysaa marka xiriirka iyaga inta leeg ha si uu sii wadeen waxay dhahaan waxaan kula xiriirin doonaa wadaadka iyaga wadaad Kristana waa boobkii kaniisadda Scandinavia jooga boobkii baa la xiriiriyay diinta islaamka oo ka saaray markii ay ogaadeen godkii ay la doonayeen inay ku dhacday ila godka weyn lagu ridaa waa gaalnimo ilaahay aan ka maagalnay waana godka weyn shaydaanka iyo saaxiibadiisa sharwadeen ay qofka la doonaan إلهي بأحرك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والشيطان كي يقفك قال لما أصابر لك بركو قالوا بين يدي بريبا كاه لو نار تكوه صراي waxay dhawa ku dhoofinayna hadaba passport baan kaaga sameeyna safaaradda Ethiopia kale tiyarado sii socotaba ayuunba maalmihii ugu dambeeyay waalidkeed oo hooyadeeda ayuunba yara murmeeyay islaamkii un bay durtay iyo diintii islaamka iyo nabiga aad sheegaysaa ma ahayn ka dumarka dulmiyay islaamka aad sheegaysaa ma ahayn ka waxa dumarka ku sameeyay wixii yara lagu shubay wixii xumaay lagu shubay qaar kood soo ka bacday sida bulaacada ayay soo neeftay wixii ila gaalnimadu waa qurun إنما المشركون النجس قرآن كاكو شاقين النجاس يقولون تاي يخبث بركي بالعادي صور نفتر إن أنت هذه هو يدادو حياركت إن أنا إن أنت هاي إربادي كل مدن تاي هو يسلن تاي ياركت تبتنا وارث وحاول يدابه إنما ذي بأول يداي إن أنت لحضوري سيد بابا الله ورئيستي بركا وحالها لي حقتي بالها لي خاتكينا ولا راعي تدرقي بالو قاعدي iyadoo si guuraysada oo gaalowday xagee laga helay dabadba uma baxday inantu waalidku wuxuu lahaa inantu wanaagsan oo ku shucdo naga saaxiibadaba ma laha inanteeda halka casharada bay ku urursan tahay oo habeenkii oo dhan raajacda iskuul waa jaamacadda iyo guriga waxba uma dhaxeeya cid ba isbaraaca ma oga halka ay dadka raacdo ee screen-ka yar ka soo baxay kaba warayso sidii baa dabadna inantii jaamacaddii lagaga saaray diintii islaamka lagu soo celiyay dadkii xumaana laga jaray